Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada taariikhda mid ka mid ah hogaamiyaashii soo maray ummadda Islaamka. Waa hogaamiyaha inta cirka eegay oran jiray daruur yahay meesha doonta ku daa kulay baqarse ka soo baxa aniga buu isoo gaarayay. Waxa uu ka dhalin jiray dhul baaxadiisu aad u weyn tahay. وأبو جعفر هارون بن محمد بن أبي جعفر بن منصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. عباسنا ونبي صلى الله عليه وسلم أدركي عباس بن عبد المطلب. وحو كل شيء مقالة الرأي ندي بقول أفرتني سدح دي هجرية. وحنا لونا نيس جري الرشيد ونيدي سنة وحي هيد أبو جعفر مركي لقدر يمي قرد بدناني يندر قرد نمو لصو كعي إساقو دائر ayaa loo magacaabay dhaxal sugaha labaad ee walaalkii ku xiga ee khilaafada Cabbaasiga. Wuxuu ahaa qof jecel aqoonta iyo cilmiga, wuxuuna intaas ku darsaday inuu isagoo yar noqday dagaalyahan fardafuul ah oo uu aqoonta ciidanimada xariif ku ahaa. Markii uu jiray 15 jir wuxuu goodoomiyay mid ka mid ah qalcadihii reer Rum oo la oran jiray Samaalo. 30 maalmood kadibna waa uu furtay khaliifkii dawladda Cabbaasiyana uu ku awaalmariyay inuu ka dhigo waaliga Azerbaijan iyo Armenia. Waxa uu noqday shakhsiyadda ugu badan ee lagu xuso khilaafadii Cabbaasiyiinta. Sanadii 165 ee Hijriga waxa uu hogaamiyay ciidan oo uu u jiheeyay dhanka reer Rum. Markii ay arkeen reer Rum in ay u babacdhigi karin ciidanka uu wato Harun Rashid, waxay heshiis kula galeen dawladda Cabbaasiya in ay sanad kasta bixiyaan jizyo 70,000 diinaar ah. Sidaas ayuuna Harun Rashid kaga soo laabtay. sanadii 168 hijrigana waxaa geeriyooday Harun aabihii. Kadibna Harun wuxuu u diray walaalkii oo deegaan kala joogo. Waa la baayacooday walaalkii, waxa uuna talinayay sanadii 3 bilood kaliya. Markii uu walaalkii dhintay waxa uu noqday khaliifkii Cabbaasiyiinta sanadii 170 hijriga. Harun waxa uu jiray 22 sano marka uu xilka khaliifada qabanayay. waxayna khaliifada xilligiisii gaartay heerkii ugu sareysay. waayihiisna waxay ahayd waayo aqoonta oo lagu tiirsado ilbaxnimo nololeed iyo isfahan ummadda dhexmara lagu noolaa. howlihii ugu badnaa ee uu ku dhaqaaqay waxaa ka mid ahaa inuu cafiyay dadkii sabaha siyaasadeed loo haystay ee ama xirnay ama baxsaday. wuxuuna asaasay wixii ugu badnaa ee waagaas ummadda Islaamka yeelato oo ahaa maktabadii la magac baxday Baytul Xikma ee Baghdad. waxayna ahayd maktabadii adduunka ugu weyneyd oo kutubo noocay tahayba ku kaydsanayd. waxayna lahayd dad hawshoodu tahay in ay turjumaan kutubta ama ay koobiyayaan. waxay lahayd maktabad Baytul Xikma qaybo kutubtu rasaysan tahay iyo qaybo muxaadarooyinka lagu qabto iyo qolalka shaqaalaha. waana maktabada markii ay Tataarku qabsadeen Baghdad kutubtii taay inta ay wabiga ku gureen ay fardaha kaga talaabiyeen. qadii kutubtaasi ka qornaydna waxay wabiga maalmo dhan u bedeshay midabkiisa madow. wuxuuna sidoo kale aad xoog u saaray dhanka turjumaanta kutubta waxtarka u leh ummadda ee aqoonta ku xidhan tahay ee ajaanibka ah. waxaana badatay oo daafaha caalamka Islaamka meel waliba lagu arkay aqoon-yahano. waxaana aad loo bartay aqoonta fiisigiska, engineerinka iyo aqoonta ikhtiraaciyada agabka. waxaana waayihiisaas la ikhtiraacay saacad ku shaqaynaysa biyo. waxaa kaloo la ikhtiraacay warshadii warqadaha wax lagu qoro ee Baghdad ka dhisnayd. waxa uu ahaa waayihiisaas markii ugu horeysay ee faynusi ifay lagu xiro wadooyinka caasimadda Baghdad, waxaana habeenkii wada ifayay magaalada oo dhan. wuxuu aad xoog u saaray Harun beeraha iyo waraabkooda si isku filnaansho dhanka cuntada ah loo gaaro. waxaa kaloo uu dhisay Harun waayihiisaas dhakhtarkii ugu weynaa ee adduunka ka jiray oo la oran jiray dhakhtarka Harun. waxaana joogay dhaqaatiirtii ugu siitay sidii ugu casrisaneedna u qalabaysnaa. waxayna Baghdad noqotay lugta aqoonta iyo cilmiga loogu soo arooro heer magaciisii daafaha caalamka gaaray oo boqoradii Hindida, kuwii Shiinaha iyo kuwii Yurubba ay fariimo sidayaal iyo dhambaalo ay saaxiibtinimadiisa ku doonayaan u soo direen. waxa uu noqday magac Harun Rashid iyo magaca Alfu Layl wa Layl, labada magac ee ugu muga weyn ee ilaa hadda lagu soo xasuusto caasimadii Baghdad ee khaliifadii Islaamka ee Cabbaasiyada. waxaa ku kacay Harun Rashid gadoodo badan oo ay dabada ka riixayaan khawaarijtii, laakiin waa uu soo afjaray kabigoodaba. boqor cusub oo qabsaday boqortooyada Bistaaniyiinta oo la oran jiray
naqfuur oo gabadhii ka dambeeyay ayaa u soo diray Haaruun ar-Rashiid dambaar uu ku leeyahay nin yahow gabadhii meesha haysatay waad cabsi gelisay ee hantidii aad sanadaha ka sii gureysay degdeg u soo celi marka ay warqadaani ku soo gaarto adiguna naftaada ku furo haddii kale waa inoo goobta dagaal markii uu Haaruun soo gaaray dhambaalkaasi aad ayuu u xanaaqay waxa uuna u diray jawaab daran oo ah ka socota amiirka muuminiinta ee Haaruun ar-Rashiid ku socota naqfuur ayga Roomaanka jawaabtu waa waxa aad arkayso iska badaa waxa aad maqlayso ee nabaday marka aad ciise iyo garaamo leedahay cidina kula kaftami mayso haddii doon ama waalan ama wadkii galay inuu kula kaftamo uu damcana sida loo eedbiyo meelba kaama jirto ee waxa uu hogaamiyay Haaruun ar-Rashiid ciidan gaaraya 135,000 oo dagaalyahano ah waxa uu furtay qalcadihii Bisandiyiinta waxa uu najibiyay ciidankiisii markaasoo kortay boqorkii Bisandiyiinta ee naqfuur gafkiisii weynaa uu u soo diray dambaal uu ku maslaxayo uu ku baryayo isagoo sidii iska soo horeysiiyay balan qaadayna inaanu dib u dhisi doonin qalcadihii uu dumiyay Haaruun ar-Rashiid ee magaalooyinka waaweynaa maruu u diray Haaruun ar-Rashiid saacadii biyaha ku shaqeynaysay ee la iqtiraacay qorkii Yurub ee Charlemagne markii ay arkeen baadiradii Kristaanka ahaa ee boqorka ka agdhawaa waxay yiraahdeen malaha shaydaan ayaa dhexda kaga jira oo dhaqaajinaya kadibna ay habeennimo jajabiyeen markii ay wax ka waayeen ay damceen inay hagaajiyaan wax waliba ay sameeyeen injineeradoodiina ay hagaajin kari waayeen kadibna boqorkii ay ku yiraahdeen baadiriyadii dambaar boqorkii Haaruun ar-Rashiid aad kaga dalbanayso in uu soo diro kooxo aqoon-yahanada islaamka ahaa ee sameeyay saacadan si ay u hagaajiyaan isagiina waxa uu ugu jawaabay ceeb ay inagu tahay mana rabo in uu ogaado boqorka Baghdad in aan waxaasi sameeyay Haaruun ar-Rashiid waxa uu guursaday marar badan waxa uu dhalay 10 wiil iyo 12 gabdhood wuxuu ahaa aqoon-yahan aqoonta iyo cilmiga jecel waxa uu geeriyooday isagoo duulaan ah oo kacdoon meel ka dhashay in uu damiyo damacsan magaalada Tuus ee iminka loo yaqaan Mashhad ee waqooyiga Iiraan dhacda halkaas ayaana lagu aasay Haaruun ar-Rashiid waxa uu ahaa hogaamiyaha sanadna duuli jiray sanadna xajin jiray noloshiisina sidaas ayay ahayd haddana hogaamiyaha taariikhdaas leh ee cajiibka waxay ka sameeyeen kuwa Urduniyiina musalsal magaciisa la yiraahdo Abnaa ar-Rashiid waxa uuna ka hadlayay Haaruun aan shaqo isku lahayn ee Haaruunkii laga heebeysan jiray ka sameeyay musalsal ay ku qiimo dilayaan hogaamiyahan sumcadiisa wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh